إذا كم سبر كتير سفرنا يا يجي جونا ورمي هذا وار أنا عواشة كوين سديد بلود إلى تري بالنسبة لأفردو أنا ما قارن كوسو إلى ذرو تاوا شخصي وفدي واحد ما جرت وفدي معهن نفس شخصي أنا كرسي قاطي هديني أو قولك الله جوا هلا يوعوي سياسة الصومالية يوعوي أبرار سياسة دبوا نقولنا أبو سوري سياسة دبوا نقولنا ما كنت شباب معناها كرسي إن أود هل مدحوينا ودنا كمسؤول كهذا نسوونه مقرنا يساي شروعيك هلا ودلك كتير ومحكمة دي للنساء dalkiina loo hoggaansan sida caalamku kala aan noqono kursigan marka mareer gaar ah yeelan doono mise wuxuu noqon doonaa kursi la wada leeyahay macnaha idinku ahaan maxaad ku diidaysaan sida laba midba horta kuma dhici kardho midda koowaad aan ku dhici karin oo aan ku yeeri karin waxay tahay horta siyaasadan adduunka oo ku kambargareynaysa tan Soomaaliya wax isqaadan kara ma anaga wadan burburay 91 qabiil la isku laayay jabhad la isku laayay koox la isku dilay ilaa maanta argagixis joogto waxa weeye dawlad dhiskiisu hadda bilow yahay asaga dhanba laba dawladood ku meel gaar wixii dhameystiran leh oo wixii ka horeeyay ku meel gaar ah iyo buuq ku jireen baan nahay horta niyo wadan noocaas weeye Soomaaliya horta wadan maanta adii karno hatta wadan madaxweynihiisa uu wadanka ka wada talin weey wadan dadku aysan is aaminayn oo qabaa'ilku hubaysan yihiin oo hadda ninka ku fariistaba reerkiisa hubaynayo oo waxa weeye Soomaalina waa iska nahayo qof walba kursiga ku farsida kursigu waa u macaanaanayayo asagu inuu ka kaca marnabo marka taas horta kow looma ogolaan karo in awoodda oo dhan uu hal qof qaato oo waxa loogu talagalay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay ayagu isbalance gareeyaan waxyaabaha markii horeba loo sameeyay waxa ku soo haray tan kana oo hadda ah hadda aad tiri waxa weeye idinku maxaa idinku jabana niyow annaga waxaan isku aragnaa inaan dawladnimada Soomaaliya ilaalinayno inaan dawladnimada Soomaaliya waxa weeye kharash badan nooga baxay inaanan ogolaan karin in hal qof tunka wixii Soomaali ku heshiisay in aanagu ku dadaalno in waxa sidoodii lagu hayo oo beesha waxa weeye cidna aysan waxba ka bedelin ilaa inta argixisada laga takhalusayo ilaa inta waxa weeye Soomaaliya balaarta laba falaar ba waxa weeye midna isha uga taagan tahay midna barida uga taagan tahay baltan horta salka uga jirtay iska saarto ha fariisato oo Soomaali si caadi ah waxa weeye marka kadib ayadoo awoodaheeda iyo sida awood loo kala yeelanayo federaalka iyo laga heshiiyo laakiin wadan aan shabaabkii la soo afjarin wadan argixis iska joogto wadan qabaa'ilka iska hubaysan yihiin wadan waxa weeye caawa hadii madaxweynaha iyo reer hebel isqabsadaan jidka waxa weeye Maka al-Mukarrama qoryo la soo dhoomanayo wadan asaga dhanbe wax kala dambeynaya nidaam ay si ka jireen dunidaba de failed state u taqaano ba awood hal qof siinaynayo asagu soo raba iska yeelaya adeer anagu qofkan nabi ma aha ilaahay nooma soo dirin anagu ma garanayno wax inuu wanaagsan yahay inuu xun yahay ma garanayno iska badaa xasan aan hore u naqaanay wuxuu ka shaqeynaya aan garanayno laakiin qof caadil ana de Soomaali oo kullu aamini karana ma jiro dadkiina isma aaminin adigu see ugu fakaraysaa marka wadan noocaana in waxa weeye awood hal qof lagu wareejiyo mise waxa la markii horeba anigu awood ma haysane hadii awood hal qof jinayo waxba macnaa igama dhibayso adeerow anagu awoodayada ma dhiibayno mana bixinayno waxa weeye federaalna ma hoos tagayno mana ogelin tan xataa federaalka dhexdiisa in hal ay noqotona ma yeelayno labada midna ma yeelayno وايا ورقاق موت قال ولا صهر يدي وهذا تبدت جمع موت قال سعوه نقدر سيد نمك ام بي عمله ها لا دير يبل دي نوقي ميوك وقع قابيه ها سوق قابيه ها كسو ان هذا روح بدل